بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. مركو الرياء وحن إلهي ومهدله وحن ميديا السلام يا سلامة الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن مانتا ومركو رأي تحي مالنتي أولاش دورشو دولة هوسعي السودان maantana waa ay tahay maalintii xisbiga kulmiye kulley walahaasi iyo kii shalay u cudahaa kii ka horeeyo ummadda ahaa si fiican bay gobolka awdal uga socdaan walayaashaasi doorashooyinku taasi waa taa ta kale waxaan doonayaa inaan halkan kaga hadlo waxa dhacday waxaa jirta shalay in maxay meediyaha taliska ciidanka boolisku ka sii daayay in hub aad u fara badan oo minooyina aad u tiro badan in shalay meeduhu laga sii daayay in boorama lagu soo qabtay hub hoobiye iyo minooyin iyo qarxayaal waaweyn tvgana qaarkood laga tusay arrintaas oo aad iyo aad argagixiso runtii wax fajiciso ugu riday gobolka meelo fara badan oo aad u fara badan oo dibadda iyo dalka gudihiisaba naga soo wareysanayo arrintaas ayaan doonayaa inay sida ahayd aan uga hadla anigoo ah barasaabkii gobolka awdal runtii hubkani ma ahayn mid la soo qabtay oo aan la ogeyn ma ahayn wuxuu ahaa hub yaalay guriga uu yaalayna la og yahay ilaa muddo dheer la ogaa dowladdii hore ee ka hogaysay xukuumadda somalilan ogeyd madaxweyne riyaale maamulka maxay hayday gobolku ay ogaayeen cidda haysay oo maxay hayday amarwo ka hadhay nin corneli qabi jiray gaashaanla sare cabdi nuur ayaa waxay hayeen wax guriga yaala lagu og yahay dowladda hore way la xidhiidheen taliska way la xidhiidheen ciidanka waa la ogaa kolley waxa u socday in ay maaragtay sida la ii sheegay in yacni waxaasna iyaguna wareejaan bay ahayd iyagana kulley de wixii xafidaadiisii iyo waxaygii dowladdu siiso wakti bay qaadatay sidaasi iyo waxaa suura gashay in waxaa dhacday inaan intii uu xukuumadda hore ay jirtay aan la soo wareejin laakiin imikana iyagoo xidhiirkii ay gabadhaasi ay la xidhiidhay maxay hayday taliska guud ee booliska qaybta meynada waxaa soo gabagabowday in wixii ay maaragtay ciidanka ku wareegso tira iga qaada guriga hala iga qaado ma hayn karo taliska ciidanka booliskuna ay soo direen qaybta meynada hubkaasina isagoo la og yahay la qaaday 23 bisha 10aad 2012 oo maalintii arbacadii ahayd arbacadan maanta arbacadeedii maxay hayday arrintaas oo markaa weliba lana soo amray inaan wax miidiya ah loogu yeedhin markaa maanta oo wakti olola aan ku jirro oo dadku nabadgelyadu aad u fiican tahay runtii anigoo ixtiraamaya taliska guud ee ciidanka booliska haddana in wixii looga soo daayo tv-ga qaab yacni ay dowladdu uu yahay hub la daba socdo oo cadow haystay oo lagu soo tilmaamo in yacni cadowgii laga soo qabtay muddo dheer la daba taagnaa la soo qabtay runtii waxa weeyaan arrintaasi waxay u muuqataa inayna ahayn maxay hayday nidaamkii booliska ama security-ga de waxay noqonaysaa inagoo isticaadaynay waxaas waa la ogaa xukuumaddii horaa ogeyd taliska ciidanka ee horaa ogaa ka maanta ogaa xukuumadda maanta
ayaa ay la soo xidhiidhay taliska guuda booliska isagoo meel ku xaraysan ayaa sidii loo ogaa halkii laga soo qaaday gabadh ay haystay maanta waa ciidankay ka mid tahay booliska minooyinka markaa ma ahayn waxaan caddaynayaa oo aan dadweynaha reer somaliland iyo ciddii kale ee khusaysaba u caddaynayaa iyo gaar ahaan aan apologisinaya dadka maxay ahayday reer awdal inayna waxaasi ahayn wax cadow gacantiisa ku jiray hubkaasi inaanay ahayn wax aan la ogeyn oo markaa imakuun lala kulmay ee ahayn hubkaasi la ogaa meel sayfa ku kaydsanaa waxaan ogeysinayayna miidiyaha runtii in ay sidaa ay ahayd arrintu dadka reer awdala iyo ciddii kale reer somaliland iyo ciddii kale maaragtay dana kale awdal iyo somalilandba waxaanu sheegaynaa inay nabadgelyadu aad wanaagsan tahay inaan wax dhibahoo maaragtay gobolka awdal ka jiraa jirin inuu ka mid yahay gobollada somaliland gobollada ugu nabadgelyada wanaagsan yahay maanta koona ilaa koona inay maanta ololihii maxay ahayd doorashooyinku dowladaha hoose ka socdaan